dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa la kulmay weerarkii ugu cuslaa tan iyo waaberigii maanta iyadoo diyaaradaha daroon ee dowladda iiraan ay ku dhaceen qaybo badan oo ka mid a imaaraadka sacuudiga iyo sidoo kale dalalka khaliijka. haddii imaaraadka aan ku hormarno, xafiiska warbaahinta ee magaalada abudabi ayaa qoraal ka soo baxay. waxaa mas-uuliyiinta ay ku sheegeen in mid ka mid a diyaaradaha daroon ee dowladda iiraan inay ku dhacday sida la sheegay gaari taraag ahaa oo maraya agagaarka deegaanka lagu magacaabo albaaxya. mas-uuliyiinta dowladda imaaraadka ayaa sheegay in hal ruux oo falastiina dhalashadiisa inuu ku geeriyooday weerarkaasi oo dhaca waaberigii maanta. sidoo kale dekadda fujayra ayaa weerar xoogan la kulantay iyadoo garoon diyaaradeedka magaalada dubayna muuqaalada lasoo bandhigay ee muujinayaan dab qabsaday garoonkaasi. diyaaradda noocan duuliyaha lahayn ayaa lagu qarxiyay aagga haamaha kaydka ee shidaalka dekadda fujayra lagu magacaabo oo dalka isutaga imaaraadka carabta, iyadoo weerarkan uu noqonayo midkii labaad oo muddo 3 maalin gudaheed ah ee lagu weeraro dekedan. sidoo kalena waxaa wararku ay sheegayaan in diyaarad ay ku dhacday qayb ka mid a garoonka diyaaradaha ee magaalada dubay. muuqaaladii ugu dambeeyey ee lasoo bandhigay ayaa muujinaya dabka xoogan ee ka kacay garoonkaasi. xaaladdu aad bay u adag tahay markaad deegto diyaaradaha daroon ay dowladaha khaliijka ay la kulmayaan. boqortooyada sacuudiga ayaa sidaas oo kale xaqiijisay in tan iyo waaberigii maanta oo isniina in ka badan 55 diyaaradood lagu soo weeraray gobolada dhanka bari ee dalka sacuudiga. shalay sidaani oo kale dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in ka badan 31 diyaaradood oo doonaysa in lagu soo weeraray. kuwait afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay 14 diyaaradood oo daroonaysa inay la kulmeen. baxrayn ayaa sidaan oo kale diyaarado la kulantay qatar iyo dalalka kale ee khaliijka. waxaad moodaa dowladahani marka inay xaaladdu ay adag tahay. dowladaha qatar iyo sacuudiga ayaa si weyn u cambaaraynaya mar kale weerarada joogtada ee ay iiraan kala kulmayaan. sidoo kalena madaxweynaha dowladda isutaga imaaraadka carabta iyo dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga laba maxamed ayaa telefoonka la sheegay inay ku wada hadleen. weliba saacado badan ayaa lagu waramayaa inay telefoonka ay ku wada hadlayeen muddo kadib markay isku qabteen arrimaha yemen iyo sidoo kale suudaan. wadahadalkooda ayay diiradda waxay ku saareen waxyaabaha la gudboon dowladaha khaliijka, go-aanka ay qaadan karayaan iyo sidoo kale sidaa ay dhibanayaal ugu noqdeen dagaalka u dhexeeya iiraan iyo sidoo kale israa'iil. markaad eegto marka xaaladdu siday u adag tahay, waxyaabaha kale ay ka wada hadleen waxaa qayb ka ah marinka hormuus, kaasoo dhaqaalihii dowladaha khaliijka saameyn weyn ku yeelanaya, marinkaasoo dowladda iiraan ay xirtay. madaxweyne trump ayaa isbahaysi doonaya inuu u sameeyo marinkan oo ciidamo badan loo soo diro, laakiin inta badan dowladihii gaashaanbuurta naata ayaad muddaa inay diideen aragtidii madaxweyne trump. jaban iyo australia waxay sheegeen in qorshaha uusan ugu jirin inay ciidan ay u diraan marinka hormuus si halkaas ay uga ogolaadaan maraakiibta inay si toos ay kaga gudbaan. labada dowladood ayaa isniinta maanta si cad u sheegay inaysan maraakiib u soo diri doonin gobolka, iyagoo ka jawaabay codsigii ka yimid madaxweynaha dowladda maraykanka. sidaas oo kale dowlado badan ayaa arrintaasi ka soo horjeestay oo waxay yidhaahdeen suuragal maahan inaan ciidankeenna halkaas aan u soo dirno. xalay waa tii uu lahaa adinka ayaa faa'iido badan ku qaba marinka hormuus, aniga wax faa'iido ah kuma qabo. ingiriiska ayaa dhankiisa waxaa lagu waramayaa inuu diiday inuu ciidan u soo diray marinka hormuus. ra-iisul wasaaraha dowladda britain ayaa sheegay ingiriiska inuu si toosa ugu lug yeelan doonin dagaalka ka dhanka ah dowladda iiraan. horeyna jarmalka iyo faransiiska ayaa go-aankani oo kale u qaatay. maantana waxaa ku soo biiray dowladaha australia iyo jaban. ingiriiska wuxuu ahaa xulafada dagaal ee ugu muhiimsan maraykanka markasta uu dagaal u qaadayo. inkastoo hadda dagaalka israa'il iyo iiraan uusan ka maqnayn, haddana waxay diideen si toosa inay ciidamo ugu soo diraan dhanka iyo marinka hormuus si loo difaaco maraakiibta ganacsiga halkaasi ka gudbaya, islamarkaana hoosu dhac weyn uu ku yimaado qiimaha shidaalka. maadaama dowlado badan oo khaliijka ay joojiyeen shidaalkii ay soo saari jireen, iiraanna ay xiratay marinkaas, gabi ahaanba xaaladda dhaqaale ee dunida ayay arrintaasi saameyn ku yeelatay. inta badan dalalka waaweyn ee maraykanka xulafada la ah waxay aqoonsan yihiin in dagaalka hadda socda uu yahay mid israa'iil ay kula jirto dowladda iiraan, israa'iilna ay taageero ka helayso maraykanka oo dana wadaag ay yihiin. sidaa daraaddeed waxay ku yidhahdeen madaxweyne trumpow waa kaliga inaad gashaa dhanka iyo marinka hormuus, ciidan aad halkaasi aad u dirsataa. taasi oo cadaadiska kor u sii qaadaysa, sababtoo diidmadan waxaa laga yaabaa inay la xiriirto in dalalku ay aaminsan yihiin in dagaalkan laga baaqsan karay, iyo qodobka ugu muhiimsan oo haddii marin biyoodka hormuus hal markab oo shidaal gebi ahaanba la quusiyo in dunida oo dhan ay gelaysa xaalad dhaqaale oo aad u adag, waxaana shaqo joojin galaya maraakiibta. taa beddelkeeda dowladaha qaar waxay bilaabeen inay xiriir la sameeyaan dowladda iiraan, sida xalay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda iiraan uu sheegay, iyagoo doonaya xoogaa si xal mastuura inay ku yidhahdaan bal maraakiibteena halkaan ha inooga gudbaano iyo waxyaabaha la midka. laakiin haddii dagaalka si toos ugu soo biiraan, marxalad kale ayaa loo gudbi doonaa. markii ugu horreysa marka
si ka badan wakhtiyada kale. Waxaan aragnaa dowlado badan oo gebi ahaanba diidaya inay madaxweyne Trump ay ku taageeraan qorshe uu damacsanaa. tanina fadeexad weyn ayay ku noqonaysaa, cadaadis kalena way kusii kordhinaysaa madaxweyne Donald Trump. sidoo kalena dowladahani inta ugu badan waxay ka caraysayeen in bilowgii dagaalka aan waxba laga talagelin, xitaa qaarkoodba aan lala wadaagin in dagaal la bilaabi doono. taasina waa waxyaabaha hadda ku qasbaya inay go'aankan ay qaataan. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Japan Shinichiro Koizumi ayaa baarlamaanka dalkaasi Japan la hadlay, wuxuuna si cad u sheegay marnaba qorshahooda inuusan ahayn inay ciidan ay u diraan marinka Hormuz. maxay kula tahay adiga qaybta hoos aragtidaada ku reeb like san muuqaalka la wadaag saaxiibadaada.